magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar maalmihii u dambeeyay waxaa ku soo badanayay xarumaha ganacsi ay soo kordhinayaan dhalinyarada iyo aqoonyahanka kala duwan ee gobolkan Saraar. xarunta cusub ee Amir Electronic Stationery and Cosmetics waxay ka mid tahay xarumihii maalmihii u dambeeyay xadhiga laga jaray kuwaas lagu soo kordhiyay magaalada Caynaba. xaruntan ayaa waxa iibisa adeegyo kala duwan oo aad u tiro badan kuwaasi oo ay baahi weyn u qabeen bulshooyinka kala duwan ee gobolkan Saraar. adeegyada kala duwan ee xaruntan ganacsi ay soo kordhisay faahfaahin nooga bixiyay xaruntan ganacsi ee cusub ee ku soo kordhay magaalada Caynaba. maamulaha xaruntaasi ganacsi Axmed Jaamac Ileeye waxaana uu ka warbixiyay in fikirka lagu furay xaruntan ganacsi ay leeyihiin dhalinyarada aqoon-yahan oo gobolka waxaana uu sheegay in furitaanka xaruntan ganacsi ay ka dambeysay kadib markii ay arkeen baahida ballaaran ee bulshadu u qabto helitaanka adeegyo kala duwan. waxaana sidoo kale uu sheegay inay soo kordhisay shaqo abuur isagoo tilmaamay inay ka howlgalaan qaar ka mid ah dhalinyaro kala duwan oo ka soo qalin jebisay jaamacadaha kala duwan ee dalka aqoontoodana ku soo celiyay gobolkooda. sidoo kale maamulaha xaruntaasi ganacsi Axmed Jaamac Ileeye iyo qaar ka mid ah howlwadeenada kala duwan ee xaruntaasi ayaa iyagu ka warramay adeegyada kala duwan ee bulshada u hayaan iyo waxyaabaha ay dheer yihiin xarumaha kale ee dhigooda ah. rabbil caalamiin wabihi nastaciin ala umuri dunya wa diin. waxaan ka salaaminaa dhammaan macaamiisha Amir Electronic and Stationery. insha Allah ta'ala Amir Electronic and Stationery waa dukaan cusub oo lagu soo kordhiyay gobolka Saraar. insha Allah ta'ala wuxuu noo qaban doonaa shaqooyin badan oo baahi badan u qabnay. waxaa ka mid ah stationery-gi ardayda jaamacadaha, ardayda dugsiyada sare, ardayda dugsiyada dhexe, dhammaan stationery-ga print material-ka dhan waan u haynaa. waxaan kaloo haynaa dukaankayga wuxuu ka kooban yahay qaybo badan buu ka kooban yahay. waxaan kaloo haynaa electronic-gii oo dhan, wax alaale wixii electronic loo isticmaalayo oo dhan. waxaanu haynaa cosmetics-kii oo dhan, cadaro iyo shaambooyo iyo dhaashiyo iyo wax kasta oo cosmetics-na waa naga ka helayaa. insha Allah ta'ala shaqooyin badan baanu haynaa. waxaan bulshada Somaliland iyo gobolka Saraarba u soo bandhigaynaa hab cusub oo ay ku adeegan karaan. habka cusub oo ah online shopping wax la yiraahdo. adigoo gurigaaga jooga ayaan kugu geenaa meel kasta joogto Somaliland ka joogto. waxaad soo garaacaysaa oo number baa soo garaacaysaa. carwooyinka ma soo koobi karo wax yaala laakiin insha Allah ta'ala waa la arkaan kulli soo arkaan. carwadu waa carwo aad u ballaaran very large weeye. kuwan waa kulli soo arkaan waxa weeye waa alaabooyin badan shaambooyo cadaro wax isku jiraan. annaga oo markaan eegnay baahida loo qabo gobolka Saraar looga qabo ama Caynaba looga qabo u soo kordhin qiimo dhibis ballaaran kulli boqolkiiba percentage yar u soo kordhin. insha Allah ta'ala ana waxaan rajaynaynaa in carwooyinka kale ee gobolka jira ama kuwa cusub ama kuwa soo socdaaba nagu deedaan si aan u sameynay relationship-ka customer satisfaction-ka horumarka kale. jaamac boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Caynaba.